الله naxariistay maxamed xaaji ibraahim cigaal waxa uu ku dhashay degmada Oodweyne ee gobolka Togdheer sanadkii 1929 waxbarashadiisii hoose iyo saraba waxa uu ku soo qaatay iskuulada degmada Sheekh isagoo waliba yaraantiisii halkaasi ka dhamaystay quraanka kariimka oo malaamad quraan ka dhigtay waddanka Ingiriiska ayaa waxa uu tagay waxbarasho la xiriirta dhinaca dhaqaalaha iyo ganacsiga isagoo maxamed xaaji ibraahim cigaal dalka Ingiriiska ka soo laabtay markii uu soo dhamaystay waxbarashadii uu tagay 1950-meedii waqtigaasina waxa goboladii Soomaaliland ee Ingiriisku maxmiyada ku haystay ka jirtay guux badan iyo olol ugu jiray xornimo doon oo uu hormood u ahaa xisbigii SNL الله naxariistay maxamed xaaji ibraahim cigaal waxa uu xogayihii guud ee xisbiga SNL ayaa loo doortay sanadkii 1956 maxamed xaaji ibraahim cigaal Allah naxariistay waxa uu bishii February sanadkii 1960 gacantiisa ku soo saxeexay inay Somaliland xornimada ka qaadato boqortooyada Ingiriiska marka la gaaro 26 June 1960 waqtigaasina waxa goboladii Soomaaliland ee Ingiriisku maxmiyada ku haystay ka jirtay guux badan iyo olol ugu jiray xornimo doon oo uu hormood u ahaa xisbigii SNL الله naxariistay maxamed xaaji ibraahim cigaal waxa uu xogayihii guud ee xisbiga SNL ayaa loo doortay sanadkii 1956 heshiiskaasi taariikhiga waxa maxamed xaaji ibraahim cigaal ku wehelinayay qaar kamid ahaa hal doorkii ummadda Soomaaliland oo ay kamid ahaayeen Cali Garaad Jaamac Axmed Kayse Ducaale Maxamuud Cabdi Caraale iyo Xaaji Ibraahim Nuur markii uu ku soo laabtay dalka waxa jidadka dhaadheer ee tagagagada diyaaradaha ee magaalada Hargeysa tubnaa kumanaan qof oo kamid ahaa bulshadii reer Soomaaliland oo farxad iyo tamaashaad aan seexan isla markaana waftiga uu hogaaminayay maxamed xaaji ibraahim cigaal ku soo dhaweeyay caleemo qoyan iyo farxad aan la qiyaasi karin الله naxariistay waxa uu maxamed xaaji ibraahim cigaal noqday ra'iisul wasaarihii ugu horeeyay ee Somaliland yeelato markii ay xornimada ka qaadatay boqortooyada Ingiriiska sanadkii 1960 koonfurta Soomaaliya oo Talyaanigu gumaysanayay ayaa kowdii bishii July sanadkii 1960 xornimada ka qaadatay dawladda Talyaaniga الله naxariistay maxamed xaaji ibraahim cigaal waxa uu hogaaminayay wafdi ka socday jamhuuriyadda Somaliland xilligaasi waxa si rasmi ah u midoobay jamhuuriyadda Ingiriisku xornimada siiyay iyo koonfurta oo Talyaanigu xornimo siiyay الله naxariistay maxamed xaaji ibraahim cigaal waxa uu dawladda ay labadii gobol ee waqooyi iyo koonfurta ku midoobeen ka qabtay xilalkii kala ahaa wasiirka gaashaandhigga sanadkii 1960 ilaa 1962 waxa kale uu qabtay xilka wasiirka waxbarashada oo hayay xilalkeeda sanadihii 1963 iyo 1964 wixii intaa ka dambeeyay waa uu iska casilay xilkaasi kadib markii dawladii uu madaxda ka ahaa Aadan Cabdulla Cusmaan maxamed xaaji ibraahim cigaal uu saluugay qaabkii ay wax u maamuleysay maxamed xaaji ibraahim cigaal oo ahaa hogaamiyaha abuur leh waxa uu hogaamiye ka noqday xisbigii mucaaridka ahaa ee loo oran jiray SNC muddo kadib waxa uu xisbigii isbahaysiga la sameeyay xisbi loo oran jiray SYL الله naxariistay maxamed xaaji ibraahim cigaal oo u dhashay karti iyo hogaamiyenimo waxa uu tartan doorasho kaga guuleystay isaga iyo Cabdirashiid Cali Sharmaake
xukuumaddii wakhtigaasi ka talanaysay Soomaaliya ee uu hogaaminayay Aadan Cabdulle Cismaan Aadan Cadde. guusha kadib dowladdii la doortay Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal waxa uu noqday ra'iisul wasaarihii wakhtigaasi ee Soomaaliya. waxa uu soo dhisay golo wasiiro oo Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal soo xulay. waqtigaasi wariye Usmaan Badawi oo ka tirsan idaacadda BBC-da ayaa ra'iisul wasaare Cigaal wareystay waxaanu wareysiga u dhacay sidan. ra'iisul wasaare dowladdan cusub ee aad samaysay waxa ugu weyn in wasaaradii tiradeedii ay korodhay waqti dhaqaalihiina uu circiraayo miisaaniyadeennuna sanad kasta ay isdhinto ma kula tahay taasi danta waddanka inay wax tarayso? waxay ila tahay danta waddanka inay wax tarayso waayo sababtu waxay tahay waddanka sideenan dhaqaalihiisu xun yahay ama miisaaniyadiisa cajsi ku jiro ee aan iskeenin laba siyood baa wax lagaga qabtaa. mid waxa weeye in dalka khidamaadkii dhexdiisa laga qaban jiray in la dhimo oo dhakhtarada la yareeyo, bilayska la dhimo, armiga la dhimo, dawladda dadka u shaqeeya la dhimo oo sida miisaaniyadii markaa naaqis la naaqisinayo la isku gaarsiiyo. sidaas waxa weeye si aan markaa dhaqaale ku kordhaynin wixii jiray unba wax la dhimay ayaa wax laga dhimayaa wax la kordhinayaa meeshii ma ay jiraan. waxay ila tahay inay tahay haddii aan Soomaaliya kelmad ugu baaro isnuugu dhaqaalihii waddanka isagu isnuugayo oo kale weeye. sida kale ee caalamku wax kaga qabto aniguna aan sidii kaga dayo waxa weeye in dalka wixii ka soo baxay la kordhiyo oo dadkii sidii markaa waxay lagu kordhinayeen ay noqoto in dadkii shaqaalihii la ballaariyo oo dhul wax ka soo baxayaan markii la helo inta dadka shaqeeyo loo sameeyo wax ka soo baxaan. Mesela meeshii haddii ay lagu khasiro malyan shilin ay 4 malyan soo saarto markaa 3 malyan faa'iido ayaa meeshii ka soo baxay. marka aniga waxay la tahay waxa aan kordhiyay waxa waddanka faa'iido u keenayo taqadum keenayo inay yihiin. ra'iisul wasaare ma kula tahay dowladdan aad samaysay inay heli doonto sawdkii kalsoonaanta? arrinkani arrin baarlamaan ku shuqul leeyahay weeye kalsoonida maxay ahayd dowladda heliinkeeda iyo waayisteedu. marka gacan rag kale wax ku jira waxay la tahay casnimo yar baa ku jirta haddii ra'iisul iyo la yiraahdo waa helaya. waxaan islaahay anigu si inaan helayaa baan qabaa sababta aan u qabaana waxay tahay de waxaan ahay neeftihin oo kale hore waxa la eega arkayo xumaanihiina ma ay jiro dadka in badan oo guri ii qabtaana way jirtaa. marka in raggii baarlamaanka yidhaahaan bal ninkan aan eegno wuxuu la soo baxo ayaa filanaya. markaa sidaas ay la tahay inaan fiqi ku helaa. ra'iisul wasaare waddanka intiisa badan waxa imika aad looga dhawaaqaa khiyaanada iyo qaraabakiilka iyo xukmi xumida xafiisyada dowladdaadu ma damacsan tahay waxyaalahaas xunxun inay la dagaalanto oo ay baabi'iso? maanta warqad dheer baan u qaybiyey dadka dowladda u shaqeeya waxaan kala hadlayay sidii bal iyaga dhaqaalahoodana loo hagaajinayay sharafkoodana loo dhowraayay iyana dalkii shaqadiisii ay ugu dadaalayeen ee dadkii u simayeen ee horumarkii dalka ay sahmiga uga qaadanayeen. marka wax hore anigu aan ka daba tagay inuu jiri jiray anigu waxaan ku qalqaal jiray haatan haddii aan xilkii qabtay in labadii geesoodba raggii isna wax dhaqaaleey iyagiina la dhaqaaleeyo isna wax dhaqaaleeyaan oo Soomaali la simo oo dalkii iyo dadkiiba loo shaqeeyo oo loo noqdo maxay ahayd loogu shaqeeyo si xilkasa oo adduunkii dalkana maxay ahayd laga dadaalo in wixii dalka soo galaa dalka soo gaaraan inay fardhaxdu ka dusin. anigu arrin ka dadaalaya weeye hore waxba loo sheegi jiray waxaan leeyahay raggiina waan kala taliyay aniguna waa iska waaniyay waana in lagu shaqeeyo waxa la tirana haddii jireen la tiro haddii aanay jirin in laga dadaalo aan dib aan u bixin ayaan ku dadaalayna. ugu dambeystii ra'iisul wasaare maxay noqon doontaa siyaasadda dibadda ee dowladdaada khusuusan maxay noqon doontaa ta ku saabsan dalalka Soomaalida ee maqan? siyaasadda khaarijiga ee dalkan waxay noqonaysaa sidii aan ragga radio Soomaaliya maalin dhawada ay weydiiyeen ugu jawaabay ama dastuurkeenaba ku qoran ee ku cad siyaasad dhexdhexayna ay noqon doontaa. laakiin iyadoo dhexdhexayntaas ay haddana noqon doontaa siyaasad si cad u dhisan oo dalkan wixii xumaan ugu maqan xumaantaa ku og wixii walaalnimo wanaag ugu maqan wanaagaayo walaalnimada ku og oo maxay kula garab taagan. dalkii maqnaa arrinkiisii waxaan leenahay dastuurkeenu sida uu qorayo wuxuu leeyahay dalkii Soomaaliyeed ee maqnaa in la doonaa weeye sifa silmiya oo nabadgelyo leh in lagu doonaa weeye. ilaa maanta dawladda Soomaaliyeed 7 sanadood ay dhisnayd
nabadgelyadaas ayay daba haysay oo ay ku doonaysay dalkii Soomaaliyeed bal maanta annagu waxaan isku daynaa inaan annaga oo tii wadayna oo raadkii uun haynayna waxaan isku daynaa bal sifad diblomaasiya in dadkan aynu maanta maxay haydeenahay jaarka nahay hareeraha inaga xiga in haddii walaalnimo wax laga heli karo iyo wanaag wax laga qaban karo in lagaga doono ilaa intii lagaga quusanayo Allah u naxariistay madaxweyne Cigaal waxa uu dalka Koonfur Afrika u tagay sanadkii 2002 xaalad caafimaad isagoo in muddo halkaasi u joogay xaalad caafimaad 3 bishii May sanadkii 2002 ayuu magaalada Pretoria ee caasimadda dalka Koonfur Afrika ku geeriyooday Allah u naxariistay Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal